canaantii ugu kululayd ay noo soo jeediyeen odayaashu waxay ahayd xisbigii waxaynu nahay xukuumiga ahaa xukuumaddii baynu nahay dadka ha loo dulqaato mucaaridka ha loo dulqaato dadka fikradahooda cabira ha loo dulqaato saxaafadda horta laba dhangadood baa nala dhacdaan haddaa xisbiga tiin iyo dadweynahaba laba dhangadood ayaa ma doon nagu dhufataan dadka ilaaliya xorriyadda qowlka ha caburinina mucaaridka ha la hadlina haddana waxa taale nabadgelyada ilaaliya wixii xun dadka ka qabta oo haddii mucaaridkii ama abwaankii ama saxafigii qaldamo maxaanu yeelnaa ilaa labadii waana garaacaysaane waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta garsoorka somalilan ay sii daysay wiil yar dhalinyaro ah oo gabay tiriyey oo namaageed xukuumadda ammaanay oo booliiska ammaanay inay yidhaahdeen idinku baa baqdee inanku wax weyn muugeysana waa xor waanu qaadanaynaa waa garsoorku waxa uu yidhi garsoorka waa aaminna waxay noo bixiyeen haddii isaga laga xukumi lahaa wuxuu odhan lahaa waxaan qaadanayaa biil waxaanu leenahay annagu waanu ku kalsoonahay qofka ma xidhno haddii aanu aragno oo dadka xeerka ay arkaan inuu qaldamay waa la qabtaa waa eedaysane maxkamadda noo kala xag gorgeysa marka waxaynu u baahannahay qofka haddii dee uu qaldamana in meel la geeyo laakiin canaanta badanaa cidna ayaan lala hadlin hadhowna waxa taalla dalku waa fowdee maxaad u qaban weyday waxaanu ku dadanaynaa dulqaadka waxaanu qaadanaynaa sidaa nafarteen dadweynahana waxaanu ku waaninahay in la ilaaliyo shuruucda oo dadka shuruucda inoo ilaaliyo buriiska mid ee canaanta aan qabanin laga daayo hariya habeen iyo dhaxanba waxay u taagan yihiin inay nabadgelyadana ilaaliyaan inay sharciga ilaaliyaan iyagu dadka ma xukumaan way qabtaan way eedeeyaan maxkamadda xaq u leh maxkamaddana in la sugaa baynu aad iyo aad ugu baahannahay qofka in la sii daayo cid ugu cararto waxa ka wanaagsan inuu maxkamadda calafkiisa ka qaado saasaasay u sharaf badan dadkana u sharaf badan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii halkan yimid aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa wiilkaa dee anigu iminka abwaankiisu waaba inan yare wiilkaa la xidhay een cadhoon een caytamin ee weliba xisbigeeni balwaan eegaya qoladii xidhay waxay wadana waa gaasinimo aad iyo aad baan kugu dul qaadanaynaa wixii aad oranaysa dhe xor baad u tahay laakiin haddaad sharci ku gabsad dee gudayn mayno taa ku talagal xor baad u tahay sharciga waxaad ku cabirayso adigiyo kuwa qayrkaada oo kale oo dhambiba inaad ra'yiga cabirtaan inaad wax abuurtaan waa ogolahay idina xeerka iyo nidaamka inoo ilaaliya aad iyo aad baa mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu